ay ku caawin doonto dalka Ukraine. sidaas waxaa sheegay safiirka u fadhiya dalkaasi Ruushka dalka Israa'iil oo la yiraahdo Anatoly Fikratov ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu ka jawaabi doono si markaasi sugan uga jawaabi doono ayuu yiri hadii ay Tel Aviv ay farageliso dalalka reer galbeedka iska dhigto. wuxuu sheegay in qalabkaasi ay hore u soo ballan qaaday ee ahaa inay ku taageeri doonto uu ka dhigan yahay in ay dharbaaxo dhinaca siyaasadda ay ku dhufato dalalkaasi. haddaba maxay ka dhigan tahay waxyaalaha uu Ruushku ku hanjabayo waxaa kamid ah inuu taageeri doono ciidamada kacaanka ilaalada ee Iran iyagu foodo ku soo haya buraleyda Golan Heights markaana ay qalab sii doonaan sidoo kale ay u ogolaan doonaan inay dhaqdhaqaaq iyo waliba howlgallo military ay ka sameeyaan aagaasi gaar ahaan dhinaca koonfureed Israa'iil ay u taqaano halista wadnaha. si kastaba ha noqotee dalka Ruushka ayaa u eg mid hareeraysan isla markaana marka dambaysa ay mar walba duufaano dhinaca kaga furanayaan. Ruushku dhan kale wuxuu ku dhawaaqay inuu markii ugu horeysay soo riday diyaaradihii loo soo diray dalka Ukraine ee dhawaan ay ku habeeyeen dalalka reer galbeedka gaar ahaan qaar kamid ah oo dalalka reer barigu ay soo gudbiyeen laakiin reer galbeedku ay dayactireen. diyaarad nooca Su-25 iyo diyaarad kale oo nooca loo yaqaano markaasi ayaa la yiri MIA-8 oo nooca caafimaadka u kacaya la burburiyay duleedka magaalada Kharkiv ee gobolkaasi Kharkiv. sidaas waxaa lagu sheegay markaasi tafaasiil dheeraad oo ka soo baxday dalkaasi laakiin way diiday dawladda la yiraahdo inay ka hadasho Ukraine arrintaasi. dhanka kale xogayaha guud qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa toddobaadka dambe ku sii jeeday magaalada caasimadda ee Moscow waxaana lagu wadaa halkaas inuu kula kulmo madaxweyne Vladimir Putin. toddobaadkan maalinta Isniinta bilaabanaya ayaa lagu wadaa inuu tago magaalada caasimadda iyadoo halkaas ay ka wada hadli doonaan ayaa la yiri maalinta Saalisada ah kulan ay yeelan doonaan Antonio Guterres iyo waliba Mr. Putin. kulanka ayaa la wada sugayay isla markaana waxa laga rajo qabaa in wuxuun ay ka soo naasacadaadaan in dalkaas lagu qanciyo madaxweynihiisa inuu dagaalka la noqdo. Greek ayaa iyaguna sheegay in markab booyad ah oo nooca tankarka loo yaqaan ay sii daayeen oo watay calanka Russia kadib markay sheegeen in la cadeeyay in gas iska lahayd dabiici aan ahayn oo nooca shidaalka iska lahayd Iran oo markabkaasi uu iibsaday isla markaana markabka magaca laga bedelay taasoo ka dhigan in markabka markii hore uu ku duulayay ama ku socday shirkad laga leeyahay dalka Iran oo iyada kamid ah shirkadaha cunaqabateynta saaran laakiin markii dambe la cadeeyay inaysan arrintu saas ahayn. markabka ayaa la sheegay in markii dambe la ogolaaday inuu sii socdo waxaa lagu tilmaamay markabkan oo Vegas la dhaho inuu sido 115,000 oo tan oo gaas ah waxaana sheegay inuu ku sii socday dekedda Marmara ee dalka Turkiga. si kastaba ha noqotee shirkadda The Marine Traffic website loo yaqaan ayaa sheegay in markabkaasi uu ka furtay xeebta dhinaca koonfureed ee Krisos ee aaga Avian uu ka dusay isagoo markaas ku sii jeeday Marmara. dalka Turkiga ayaa uu markaasi in uu cilaaqaad caadi la leeyahay dalka Ruushka iyo dalalka kale. dadka muslimiinta ee ku dhaqan dalka Faransiiska maanta waxay sugayaan in ay soo baxdo natiijada galinka dambe caawa ama ay soo baxdo labada shaydaan dadka loo arko ee labada hogaamiye la kala dooranayo ee dalkaasi Faransiiska. midna uma wanaagsana islaamka sida daraadeedna dad badan ayaa waxay ka samaysteen habku dhega ah laba shaydaan oo midba hadduu soo baxo san ka kale uusan dhaamin. sida daraadeedna waxaa la sheegay in doorashadii ugu xumeyd dalka Faransiiska inay wada soo martay halkaas ka dhici doonto ayadoo laba xubnood oo iyagu islaamka si weyn uga dirsan ay dalkaasi ay ka tartamayaan. hagaag dabashada qiimaha badan ee wararka wacala dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan qoys isaguna Sacuudiga u dhashay ayaa waxaa dab qabadsiiyay qof qaraabadooda ah sida boqortooyada Saudi Arabia sheegtay. arrintan waxay ka dhacday magaalada Safwa ee dalka Saudi Arabia waxaana ahayd masiibo aad u weyn oo fool xun sida ay xukuumaddu sheegtay. masiibadan ayaa dhalatay kadib markii qoys afar ka kooban hooyo iyo aabba iyo laba carruur uu dusha guri kaga xidhay qof qaraabadooda ah kaasoo lagu tilmaamay ruux nin ah dabadeedna uu gurigii dab qabadsiiyey isla markaana uu diiday baryadoodii ugu dambeysay ahayd inuu guriga ka furo. ninkan oo la sheegay sida laftiisu dabka ku waxyeeloobay laakiinse ku guuleystay in uu afartii qof uu dabka qabadsiiyo ayaa loo cararay cusbitaalka si isagana looga daweeyay ayaa la yiri dhaawaca dabka ka soo gaaray. durbaba baartaan raaco soo baxay ayaa la sheegay in qofkan uusan qabin xanuunada dhimirka oo aan loogeyn wax xanuuna oo dhimira oo muujinaya inay falka foosha xun ay ku qaadeen ay u geysay. waxaana arrintan imaanaysaa iyada oo dalka Sacuudiga ay ka mid yahay dalalka markaas dambiyada sida oo la dagaalama. dhanka kalena Mareykanka ayaa u soo magacaabay safiir ugu dambeyn iyadoo in uu safiirka Mareykanka uu ka maqnaa magaalada caasimadda Riyadh. Michael Fratney ayaa waxa uu madaxweynaha dalka Mareykanka u gartay inuu noqdo safiirka u fadhiyi doona boqortooyada Sacuudi Arabia dalweynaha Mareykanka waxaana la sheegay in haatan Mr. Fratney uu yahay ku-xigeenka ayaa la yiri waaxda arrimaha dibadda dalka Mareykanka ee adeega dibadda ama loo yaqaan The Foreign Service Institute maxadka adeega dibadda kaasoo dhawaan markaasi ahaa ayaa la yiri isaguna ku sime safaaradda magaalada Qudus ee Mareykanka horay uu ugu rartay. Fratney ayaa waxaa la aaminsan yahay inuu bedeli doono ninkii loo jeeday John Abiy kaasoo madaxweynihii hore ee ka tirsanaa dalka Mareykanka uu magacaabay. daawashada qiimaha leh
intaas ku jiraya tan iyo inta isku arki doono warar oo caalami ah dibadda caalamka qodobo kale iyo dabcan barnaamijkeena maxaa xisalaad ku soo xiimaya ayaa soo jiri doona.